dalka Suudaan waxaa ka socda dagaal aad loogu hoobtay dhimashada 10,000 dhaawaca 100,000 baahida iyo barakaca malaayiin xasuuqyada kufsiyada iyo tacadiyada kala duwan dagaalkaas oo saxaafadda dunida inteeda badan ay dooratay in aysan uga hadlin sidii la rabay sababo isbiirsada aawadood ayaan doonayaa maanta inaan yara falanqeeyo haddaba dagaalkaas muxuu ku saabsan yahay yuu ka dhaxeeyaa dagaalka ka socda Suudaan wuu wajiyo badan yahay wuuna furino badan yahay laakiin labada kooxood ee ugu waaweyn ee isku haya gacan ku haynta wadanka labada koox ee kala ah militariga wadanka Suudaan oo uu hogaamiyo ninka loo yaqaano Abdulfatah al-Burhan oo loo aqoonsan yahay inuu yahay madaxweynaha wadanka Suudaan hadda iyo koox ah maleeshiyaad la qarameeyay oo loo yaqaano ad-dacmu sariic ama RSF Rapid Support Forces oo uu hogaamiyo ninka loo yaqaano Maxamed Xamdaan Dagaalo oo xamiidta ku magac dheer oo asaga qudhiisu haddii arrinta la fududeeyo madaxweyne ku-xigeenka wadanka Suudaan haddaba labadaas nin Abdulfatah al-Burhan iyo Maxamed Dagaalo ayaa kala hogaaminaya laba kooxood oo aad u hubaysan waxa ayna isku hayaan gacan ku haynta wadanka dagaalka intiisa ugu badan waxa uu socdaa laga soo bilaabo bilowgii sanadkii 2023 ilaa maanta haddaba kama hadli karno dagaalka ka socda Suudaan ilaa aan ka hadalno waxa ay yihiin kooxdan loo yaqaano RSF kooxda RSF-ku waa kooxo ahaa jira maleeshiyaad waxa ayna u badan yihiin kooxdii loo aqoon jiray janjawiidka kuwaas oo dowladda Suudaan ee hore ee Xasan al-Bashiir ay qaramaysay ayna ku soo dartay dowladda intii uu soo bilaaban dagaalka hadda socdaa labadan koox ee isdagaalaya isku dhinac ayay ahaayeen oo waxa ay isku kaashadeen in ay xukunka ka tuuraan dowladdii hore ee madaxweyne Xasan al-Bashiir haddaba haddii aan soo koobo yaa ishaysta kooxo badan ayaa ishaysta ujeedooyin kala duwan leh laakiin waxa ugu waaweyn labadaas koox ayaan soo sheegnay maxay isu haystaan mid walba wuxuu doonayaa inuu wadanka asagu maamulo waxaa la isku haystaa dhaqaalaha wadanka iyo khayraadka wadanka haddii ahaaleed shidaal dalag waxyaabo badan noocyada kala duwan ee khayraadka waxaa kaloo la isku haystaa qaab siyaasadeed maadaama leeyahay militariga Suudaan waxa uu la soo shaqeeyey Cumar al-Bashiir waxa ayna aaminsan yihiin fikrado islaami ah qaabab dhaqaalo islaami ah dastuur islaami ah iyo waxyaabo saas maxaa yeelay dowladda al-Bashiir waxa ay caan ku ahayd inay sheega jirtay inay tahay dowlad islaami ah kooxahan Mareykanka iyo Imaaraadkuna ma doonayaan in Suudaan dhankaas islaaminimada loo wado waxay doonayaan in dastuurka la bedelo qaab dhaqaaleedka la bedelo wax walba la bedelo loona dhiibo koox u janjeerta bidixda laakiin dadka Suudaan inta badan waxa ay taageersan yihiin militariga kooxdan waxa taageersan Imaaraadka iyo wadamo deriska iyo Mareykanka haddaba wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in militariga Suudaan ay ku dhow yihiin inay ka saaraan kooxdaas magaalada caasimadda ee Khartoum waxaana la sheegayaa kooxdaasu balanbiigooda haddii ay u suurtagali weyso inay Khartoum qabsadaan ugu yaraan wadanka inay bar ka qabsadaan caasimadna ka dhigtaan magaalada Nyala waxaa xusid mudan in militariga Suudaan uu isku dayo ugu yaraan inuu waji ka samaysto kooxahan Mareykanka iyo Imaaraadka uuna u muujiyo inuusan islaami ahayn oo inuu yahay yara dhexdhexaad waa kuwa muddo dhexe aqoonsaday Israa'iil aqoonsaday waxyaabo badan ay damceen in ay waji uga samaystaan Mareykanka iyo Imaaraadka oo taageero uga helaan ayay sameeyeen nasiib darro uma muuqato Mareykanka iyo Imaaraadku inay ku qancayaan wax aan ka ahayn in militarigaas la bedelo kooxdan kalena meesha loo dhiibo